balse waxa daha laga qaaday in Akshay Kumar uu ku khasban yahay in uu u mahad celiyo Arbaaz Khan oo si dadban sabab ugu ah in Akshay Kumar fanka Hindiya si weyn kaga dhex muuqdo 25 sano ee ugu dambeeyay. Waxa ka soo wareegatay 25 sano samaynta filimka Qilaadi 1992 ahaa hidkii ugu horeeyay ee Akshay Kumar uu sameeyay. Haddaba labada director ee Qilaadi sameeyeen Arbaaz iyo Mastan waxay shaac qaadeen in uu ahaa Arbaaz Khan, balse markii Arbaaz samaynta filimkan uu iska diiday ay Akshay Kumar la saxiixdeen. Haddaba Akshay Kumar ka hor Qilaadi noloshiisa fanka Hindiya dhulka ayay tiilay, mashruuc walbana uu guul dareystay, dhaliil joogto ahna waa la daba taagnaa. Qilaadi kadib wuxuu noqday atoore isku filan oo sameeyay aflaan heer sare ah kuwaas oo guulo wacan ka gaareen ilaa haddana la jecel yahay. Arbaaz Khan mar labaad ayuu haddana fanka Hindiya Akshay Kumar badbaadiyay maadaama uu iska diiday samaynta filimka Dhadkan ee sanadkii 2000 la daawaday. Akshay Kumar intii u dhaxaysay 1997 ilaa 2000 laga soo gaarayay xaalka aad ayuu ugu xumaa. Inta badanna 90% filimada uu sameeyay waxay noqdeen kuwa dhulka galay ganacsi ahaan. Haddaba Kumar oo badbaado kale u baahan wuxuu helay filimka Dhadkan isagoo kaga mahad celiyay Arbaaz Khan in uu filimkan iska diiday. Dhadkan guul wacan ayuu gaaray, laakiin Akshay Kumar doorkiisii wacnaa ayuu ammaan lixaad leh ku helay, kana caawiyay in uu dib u soo nooleeyo waayadiisii Bollywoodka. wixii Dhadkan ka dambeeyay Akshay Kumar mar saddexaad caawinaad kaga ma baahanin Arbaaz Khan, waayo 2000 ilaa haatan Kumar sare u kac wali ah ayuu samaynayaa, wuxuuna gaaray darajada superstarnimo. sidoo kalena maanta waa atoore ku damaanad qaadi karo in sanadkii in uu sameeyo 3 ama 4 filim haddana wada guuleysteen. isku soo wada duubo Akshay Kumar oo 25 sano ka soo wareegatay samaynta filimkii Qilaadi waa in uu Arbaaz Khan kaga mahad celiyo sii jiritaankiisa waayadiisii fanka Hindiya. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay Akshay Kumar oo u mahad celiyay Arbaaz Khan, sheegayna in uu mustaqbalkiisa jilinka sare u qaaday.